السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii duubista maadada xisaabta casharkii labaad ee ahaa sum and difference for sine and tangent aan ku jirnaa example-kiisa saddexaad. Videogii hore waxaan ku soo xalinay qaybta koowaad oo example-ka saddexaad. Haddana waxaan xalinaynaa insha Allah qaybta labaad oo isla example-ka saddexaad annagoo ka shaqeyn doono tan a plus b. Marka tan a plus b qaabkee loo furfuraa ayaan leenahay. tan a plus b waxaa loo furfuraa tan a oo lagu daray tan b oo loo qeybiyey 1 minus tan a oo ku dhacsan tan b. marka saas ayaa loo xaliyaa. marka su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay given-kii horena loo siiyey su'aasha given-keeni horena loo siiyey kuma jirin tan kuma jirin oo kaliya waxaan la siiyey sin iyo cos. marka tan waxaan ka soo dhex saaran doonaa tan a waxaan ka soo dhex saaran doonaa sin a oo loo qeybiyey cos a. tan b na waxaan ka soo dhex saaran doonaa cos a sin b oo loo qeybiyey cos b. marka halkan nakeen si aan u soo saarano waxaan leenahay tan a waxaa lagu helaa sin a oo loo qeybiyey cos a. sin a hore waxaana loo siiyey 4/5 oo loo qeybiyey cos b na waxaan soo saaranay minus 3/5. kadib waxaan sameynaynaa marka 5 sareeya ah iyo 5 hooseeya isla bixi. tan a waxay noola mid tahay markaasi 4 oo sareeya ah iyo 3 oo hooseeya ah laakiin minus wadato. tan a waan helnay. waxaan kaloo soo saaranaynaa haddana tan b aan soo saaranaynaa. tan b waxaa lagu helaa aan leenahay sin b oo loo qeybiyey cos b. saasaan leenahay. haddaba waxaan leenahay marka sin b waxaan soo saaranay minus 12 minus 12 oo loo qeybiyey 13. cos b na waxaa la isiiyey minus 5 oo loo qeybiyey 13. kadib waxaan leeyahay minus iyo minus isla bixi 13 iyo 13 isla bixi. ugu dambeyn tan b waxay ila mid noqon doontaa 12 oo loo qeybiyey 5 ayay ila mid noqon doontaa. marka haddeer waa shaqaysan karaa maadaama aan haysto tan a iyo sidoo kale tan b aan haysto waan shaqaysan karaa. oo waxaan leeyahay tan a plus b waxaa loo furfuri jiray tan a oo lagu daray tan b oo loo qeybiyey 1 minus tan a oo ku dhacsan tan b. marka mid walba qiimaheeda noogu bedel. tan a waxaan haysanaa minus 4/3 ku bedelo minus 4/3 plus. tan b na waxaan haysanaa 12 oo loo qeybiyey 5 loo wada qeybiyaan leenahay. marka 1 minus noo soo qaad intaan isku dhufo bracket noo fur minus 4/3 oo ku dhacsan 12 oo loo qeybiyey 5. saasaan leenahay. marka intaasaan furfuri doonaa. kor waxaa nooga soo bixi doonto hooseyaashoodu waa 15 3 iyo 5 LCM koodu waa 15. kadib waxaan leenahay 15 3 u qeybi waa 5 minus 4 ku dhufo minus 20 oo lagu daray 15 waxaa u qeybisaa haddana 5 u qeybi 3 12 ku dhufo waa 36 loo wada qeybiyey hoostaan imow. kadib waxaan leenahay 1kan inoo soo qaad minus plus ku dhufo minus ku dhufo waa plus 4 waxaad ku dhufataa 12 48 oo loo qeybiyey 5 waxaan ku dhufanaynaa 5 waa 15. ugu dambeyn kor waxaa nooga soo bixi doonto labada koraa kala go'i doono waa 16 oo loo qeybiyey 15 oo loo wada qeybiyey. hoostan waxaan sameynaynaa si aan u mideyno 15 waxaan ku dhufanaynaa horgalahaas oo halka ah 15 48 geey waxay noqonaysaa 63 oo loo qeybiyey 15. marka meeshaan joogno waxaan isla saaraynaa 15 oo sareeya ah iyo 15 oo hooseeya ah. therefore tan a oo lagu daray b waxay noola mid tahay aan leenahay 16 oo loo qeybiyey 63. su-aasha b meesha ayaan ugu shaqeynay. waxaan galaynaa haddana xarafka c ayaan gali doonaa insha Allah. xarafka c waxaa la ii diray keliya bas inaan sheego the quadrant. c waxaa la ii diray the quadrant of a plus b. the quadrant of a plus b baa la ii diray. macnaha su-aashii a-da aan ka soo shaqeynay iyo su-aashii b-da ahayd aan ka shaqeynay waaxyaha ee dhacaana naloo diray. haddii aan a ku laabano waxaan soo saaranay a markaan ka shaqeynaynay 16 oo loo qeybiyey 65 aan soo saaranay.
16 oo loo qeybiyay 65 waa positive waay balaasay wadataa sidoo kale b markaan shaqeynay ayadana waxaan soo saaranay 16 oo loo qeybiyay 63 aan soo saaranay marka waa positive marka waxaan isweydiinaynaa su'aal ah sin iyo tan goormay labadoodu balaas noqon karaan ama waxaan isleenahay sin iyo tan waaxda ay labadoodu balaas ay ku yihiin waa waaxda marka waa waaxda koowaad waay therefore waxaa leedahay marka the quadrant of a plus b is quadrant 1 aan leenahay waa quadrant 1 oo ah waaxda koowaad waa quadrant 1 ayaan leenahay oo ah waaxda koowaad marka su'aasheenii oo ahayd example-ka saddexaad oo kaga shaqeynayna xarafka a iyo b iyo c aan kaga shaqeynaynay walow xarafka a aan kaga soo shaqeynay videogii hore xarafkan aan kaga shaqeynay xarafka b qaybtan aan kaga shaqeynay xarafka b iyo xarafka c halka ay ku eg tahay marka muuqaalka ku celcesho insha Allah waad fahmi doontaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan u gudbi doonaa example-ka kale intaan example-kaas ka gaarayno haddii intaan aad nala soo gaartay ay laabin inaad muuqaalka noo sii share garayso aadna nagu soo biirto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته